kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda dunida qodobada daawadayaal ku maqli doontaan wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan waxaa ka mid noqon doona sida xun ee gudnimada leh ee halganka dadka reer Falastiin loola dagaalamay iyo dhammaan fikradaha tiknoolajiyadda reer galbeedka oo ku goobtay dadka reer Falastiin iyo xogaha waaweyn ee banaanka la soo dhigay ee kabiyahanba kala dardaran Biden waxa uu qirtay in uu ku fashilmay inuu Israa'iil xadhig u noqdo oo uu gardarrada ka qabto xilli seeftu dul saaran tahay mustaqbalkiisa siyaasadeed Mareykanku wuxuu ku dhawaaqay inuu ku guul daraystay sidoo kale dekadii qasa uu ka sameeyay isla markaana albaabada ay isugu dhufteen gabiyahanteed gaanka gardurida daawadayaal waxaad kale ku maqli doontaan in Ruushka oo bilaabay ugaarsiga madaxda shirkadaha hubka reer galbeedka iyo dagaalka qabow ee sida foosha xun ee rasmiga ah u curtay Mareykanka waxa uu sidoo kale ka digay inuusan u sujuudi doonin Putin iyo siyaasaddiisa uu ku tilmaamay caga jubleed iyo gacan maroojis Ruushka oo dhankiisa iyaguna hadalkaas ka soo yeeray Mareykanka ugu yeeray kuna sifeeyay afxumo aan la aqbali karin iyo xaaladda labada dal oo qir tarbeelka wararka waxaa kaloo ka mid noqon doona tabashana qiimaha gaanka jaawareerka siyaasadeed Spain ka tafmay kadib markii dawladii wadaagga ahayd ay kharbudeen xubnaha midigta fog Yurubta Soomaalidu ay u yaacayso oo la xaqiijiyay in dadkoodu aysan gada karin raashinka qutul daruuriga iyo xaalkooda saboolnimo oo si darsad doona iyo maalmaha adag ee ku soo wajahan 1 milyan oo diyaaradood oo nooca dagaalka ah gabi ahaanna isugu jira kuwa drones iyo kuwa kale qumatiga ka oo la siinayo Ukraine sababta ay colaada u rabaan kooxaha biixda u janjeeray ee dalalka reer galbeedka gaar ahaan Yurub oo dadkoodu gaajo iyo laga soo sheegay darxumo madaxweynaha Kenya oo markii dawladiisii oo dhan uu kala diray hadda ka fikraya dad xul ah oo shacabka Kenya u shaqeeya waa waxyaalaha la yaab kale trabeelkaas iyo warar kale oo caala oo kala dhacaynin oo dunida dalkeena hooyo iyo sidoo kale caalaha iyo wacaalaha waaweyn dunida oo dhan daawashana qiraale aan ku bilaabo sulkaan ugu horeysiyo trabeelka wararka sarkaal sare oo ka tirsan kooxda loo yaqaano The Yemeni Supreme Political Council oo ah kooxda xuutiyiinta ugu sarreeya dhinaca siyaasadda ayaa waxa uu markii ugu horeysay hadal digniina u diray dawladda boqortooyada Saudi Arabia tani waxay noqonaysaa iyadoo weli Sacuudigu uusan go'aan ka gaarin marmarsiyaha dawladda Mareykanku ay sii wado ee ku aadan qorshayaasha qaarkood waxaana uu sidoo kale uu ka digay waxa uu ugu yeeray in dawladda Mareykanka gorsii horeysay sheegtay in kooxda xuutiyiinta ay saarayso cunaqabatayn waxay uga digtay dawladda Saudi Arabia inaysan ku kadsoomin waxay ugu yeereen mu'aamaradaha Mareykanku uu maleegayo oo aysan isku dayin in ay Yemen cunaqabateeyaan kooxdu waxay ka digtay in dawladda boqortooyada Saudi Arabia ay ku kadsoomi karto waxaasi dadka reer Yemen si fiican ayay u eegyihiin in la doonayo in la qaado beegsi shakhsiyaadkooda hantida haysta dhaqaalahooda iyo sidoo kale in la jaro ayaa leeyahay waxyaalaha xuquuqda ay dadkaasi u leeyihiin oo ay ka mid tahay in boqortooyada Saudi Arabia oo bariyi ugu dambeeyay oo dhan iyadu xitaa dhaqaale siinaysa taasi waxay ku noqonaysaa caqabad ayay yiraahdeen wada shaqaynta labada dal Sacuudigu wuxuu ka taageeraa dhinaca dhaqaalaha bariyihii ugu dambeeyay oo dhan waxa ay sheegeen in gabi ahaanba haddii ay laakiin Sacuudigu ay go'aansadaan in ay gabi ahaanba dhaqamo dhinaca colaadda ay qaadaan oo Washington ay ku cadaadiso saasoo kale iyagoo u faa'iideynaya taas waxay yiraahdeen taasi gabi ahaanba weligeedii aleed ba faa'iido u noqon mayso dawladda boqortooyada Saudi Arabia ay bariyihii ugu dambeeyay oo dhan la sheegay in Mareykanku cadaadis xooggan ku saarayo inay cunaqabateeyaan isla markaana ay ku yuriyuriyaan wax loogu yeeray cadaadis dhinaca dhaqaalaha wadanka Yemen iyo kooxda awoodda badan kadib markii ay kooxdu go'aansatay inay qaado weeraro Mareykanka ayaa waagaas iyo tii koreysay waxay ku tilmaameen inay sii socon doonto waxay ugu yeedheen markaasi weeraro aad u xooggan oo ay ku qaadayaan nidaamka dhinaca dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhinaca maraakiibta qulqulaya badda ay Israa'iil leedahay waxayna ku tilmaameen inay sii wadi doonaan tan iyo intay jilbaha dhulka ugu dhufanayaan nidaamka saanooniyadda oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid ayaga gabi ahaanba ay doonayaan inay adkeeyaan waa trabeelka wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda tabashana qiimaha badan gaanka gaanay wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda sidoo kalena taliyaha ciidanka qalabka sida wadankaasi Iran ayaa markale ku celiyay xaqiijinta waxa uu ugu yeeray awaamiirta la siiyay ee nidaamka dawliga ee Iran oo ku shaqeynayso inuu yahay ay yiraahdeen xaqiijinta dadka iyo danta dalka oo ay ku jirto ayuu taageerista kooxaha uu ugu yeeray wax iska caabinta gobolka ka jira kuwaas oo sheegay inay weligood si taageeri doonaan wuxuuna sheegay inay ka mid tahay arrintaasi waxa uu ugu yeeray qorshayaasha dhinaca jantus kale istiraatiijiyadda
iyo siyaasadda joogtada the strategic and permanent policy ayuu yiri oo dowladdu ay leedahay isagoo hadlayay Jenaraal Ismaaciil Qaani ayuu sheegay in gabi ahaanba tan la joogteeyay la iskuna raacay in cid kasta oo talada wadanka timaada kolka ay timaado in la iska caabiyo nidaamka sanooniyada iyo sidoo kale in la taageero kooxaha gobolka ka halgamaya kuwaas oo uu sheegay inay u geeylamayaan kaliya xoreynta dadka reer Falastiin in iyo waliba wuxuu ugu yeeray danaha caalamka islaamiga inay difaacaan taas inay tahay waajibaad diiniya oo saaran wuxuuna sheegay inaan cidina taas aysan ka soo noqon doonin dibna uga soo dhici doonin waa tarbeelka wararka wacala dhinaca dibadda dawashada qiimaha badan gaanka gaandunida oo dhan haatana Kenya wadanka Kenya madaxweynaha wadankaasi Kenya ayaa wuxuu ka fakarayaa inuu gabi ahaanba soo saaro wax loogu yeeray dad xul ah oo wadankiisa samcad ku leh kuwaas oo jecel dalkooda hooyo sidoo kale dadkooda ixtiraamaya madaxweynaha wadanka Kenya oo u muuqda in uu casharo dhinaca siyaasadda uu barayo dalalka uu dariska leeyahay markabana ay ku muuqanayso sida dawladda Soomaaliyeed ee madax ka noosha ka bilaabata biyatooniga ilaa madaxweynaha oo inta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed uu garwadeen u yahay lana sheegay file uusan ogeyn inuusan ka bixin wasaarad waax iyo wakaalad ayaa la sheegay inuu gabi ahaanba markii uu hufay dhammaan golihiisii wasiirada oo dhan inuu haatan u kala hufay sidoo kale taliyay ciidanka guud ee dalka Kenya ayaa habeen hore isaguna saasilay jimcihii ayuu ku dhawaaqay taliyay guud ee booliska goor gaaban oo markaasi uu jimcuhu sii galay makhriinimadii inuu gabi ahaanba is-casilay kadib markii uu madaxweynuhu uu ku cadaadiyay kaas oo uu sheegay inuu qaabka oo u maamulay dadka Kenyanka oo cabanaya isla markaana uu qalka ka galiyay dhibaatooyin aad u xooggan inay keentay cara oo ugu yeeray mid aan gabi ahaanba dhamaanayn haddii aan talabooyin la qaadan kooxda jinsi ayaa waxay gorsi wareysay ku tilmaameen in talabooyinka uu madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto uu qaaday in ay yihiin kuwo gabi ahaanba muhiim ah taliyaha guud ee wadankaasi kadib markii uu casilay waxaa la sheegay in gabi ahaanba uu ku eedeysan yahay inuu si xun u maamulay qorshayaashaasi qaar ka mid ah saraakiisha wadankaasi Kenya jooga ee reer galbeed ayaa waxay ku tilmaameen dalka Kenya in uu yahay dal dhabaha dimuqraadiyadda iyo sidoo kale isla xisaabtanka iyo cisaynta dadka cagta saaray dulwaansiintan oo la hadlay warbaahin markaasi magacoodana diiday in la xigto ayaa waxay xaqiijiyeen inay tani tahay waxyaalaha tusaalaha u noqon kara gobolka Geeska Afrika gaar ahaan waxa ay ugu yeedheen xubnaha gobolka Geeska Afrika ee macangaginta iyo kuwa awoodda dhinaca aggravation-ka qabyaaladda ay dilootay ACC mid ka mid ah saraakiisha European-ka ayaa warkaasi laga soo xigtay mas'uuliyiinta dalka Niger ayaa ku dhawaaqay bandow lagu soo rogay gobolka Teleperi oo ay ka jirto xaalad kacsanaana kadib markii maxaabiis dhowr ah ay ka baxsadeen xabsi ay ku xidhnaayeen dad badan oo ka tirsan koox Islaamiyiin ah oo iyagu wadankaasi ka dhaqaaqay sida ay wararku hadaba ay sheegayaan dhacdadan ayaa dhacday maalintii Khamiista ahayd waxaana la sheegay in xabsiga loo yaqaano Kotokale oo ku yaala meel 50 kiiloomitir waqooyi ka xigta magaalada caasimadda Niamey sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaas laba isku day oo kale oo lagu doonayay in xabsiga looga baxsado 2016 iyo waxa fashiliyay waagaasi ciidanka ammaanka hase yeeshee ciidamada qalabka sida dalka Niger ayaa waxa ka awood batay weerar kooxaha jihaadiyiinta ee iyagu galbeedkaasi weerar ka soo qaadeen kuwaas oo militariga la sheegay in ay ka atturoonaadeen inkastoo militariga la sheegay goobta joogay ee tiro kooban ahaayeen dhawaan ayaa dalalka Mali dalka Burkina Faso iyo dalka Niger waxa ay sameeyeen wax loogu yeeray markaasi tallaabadii ugu weyneed uguna ballaadhneed ee dhinaca kolka ay timaado ayaa isku duubni militariga ciidanka heeganka ee abid dhici doona ee qaarad Afrika ay yeelan doonto kuwaas oo federate ku shaqeyn doona awaamirtana hal meel laga sii doono sidoo kale hal caasimad laga xukumi doono taariikhda intii qaaradu ay xorowday ayay ku dhawaaqeen wadamada si galbeedka Afrika waxayna la bixeen taxalufka gobolada saaxil taasoo gabi ahaanba ay dhirbaaxo iyo wajigabax ku noqotay dalalka inta ku haray nidaamkii loo yaqaanay ECOWAS kuwaas ay diideen inay ku noqdaan galbeedka Afrika waxayna ku tilmaameen in nidaamka isbaahaysiga halkaas ka jira gabi ahaanba uu yahay mid ay maamulaan gacantana ugu jirto dalalka reer galbeedka gaar ahaan wadanka gumaystaha Gaamuray ee Faransiiska sida daraadeedna aysan dib ugu soo noqon doonin tahriibayaal ayaa ku dhintay bal aamsan yahay kanaalka la yiraahdo English Channel sida ay sheegeen ilaalada xeebaha ee dalka Faransiiska iyadoo ay u muuqato inay mar kale dadkaasi isku dayeen inay soo gudbaan kadib markii isbedel dhinaca doorashada wadanka Ingiriiska ka dhacay inkastoo dawladda Ingiriiska ee cusub ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha wadankaasi Mr Starmer uu sheegay inuu sagali ahaanba dadka uusan dhoofi doonin joojiyeen qorshihii qabqabashada dadka haddana habeennimadii ay hayd markaasi ay soo galeysay Khamiisto ayaa la sheegay in doon ay wateen ciidamada badda lagu wargeliyay in muhaajiriin ay ku dhaceen badda xeebaha waxa ay sheegeen dadkan Faransiiska in ay markaasi isku dayeen inay badbaadiyaan habeenimadaas la sheegay Khamiistii ciidamada badda markii loo sheegay in ay muhaajiriin ay ku daateen badda xeebaha loo yaqaan Bogny-sur-Mer ee waqooyiga Faransiiska afar qof
oo la helay iyagoo suuxsan ayaa booliisku sheegeen in la badbaadi kari waayey waxaana inta ay ku dareen in lasoo badbaadiyey ilaa iyo 63 qof oo kale sida laga soo xigtay ilaalada xeebaha France markab kalluumaysi ayaa sidoo kale gacan ka geystay waxa loogu yeeray dadaalka gurmadka ee samata bixinta dadka dhimashada tariibayaasha ayaa imaanaysa iyadoo oo 882 qof ay ka gudbeen kanaalka iyagoo la socday 15 doonyood oo yaryar talaadadii si la aaminsan yahay tan ayaa imaanaysa in ay tani tahay wax loogu yeeray markaas maalmihii ugu horeeyay ee dhibaatooyinka aadka u xoogan sida muuqata dadweyne ay soo noqdeen dadka ayaa deerto rajo ka muujinaya dawladda uu hogaaminaya xisbiga Labourka jaawareer ay qalaase ayaa ka jira galbeedka magaalada Qasa kadib markii ay taangiyada Israa'iil ay saga baxeen halkaas oo ay ka wadeen wax loogu yeeray ciidamada hawlgal 2 maalmood iyo 3 ugu dambeeyay ilaa iyo maalintii Khamiistii kala baxay ka hor militariga Israa'iil ayaa ku amray dadka deegaanka inay isaga guuraan markii labaad dad ka tirsan markaasi kooxaha gurmadka ayaa isku dayay inay gaaraan deegaanka iyadoo la sheegay in meydadka wadooyinka ay daadsan yihiin iyadoo si tarab Israa'iil ay meydadka dadka u laysay nidaamka sanuuniyada ee foosha xun gumaysiga aad iyo aad ka cadawada xoogan u muujinaya dadka reer Falastiin ayaa la sheegay in meydadka halkaas laga helay yihiin kuwa rebel ururka Hamas ayaa ugu baaqay qaramada midoobay dunida iyo caalamkaba in ay gabi ahaanba ay farageliyaan tan isla markaana waxay sheegeen in ilaa 60 meyd laga helay aagag waaxda loo yaqaan civil defense reports ayaa goortii horeysay waxay sheegeen meydadkan ayaa waxay u muuqdaan ayaa la yiri kuwa ay halkaasi nidaamka sahaniyada Israa'iiliintu ay kaga tageen kadib markii dhibaatada xooggan u geystay dhacdooyinka noocan oo kala mar kale waxa ay muujinayaan weerarka argagixisanimo ee ciidanka sahaniyadu ay ka sameynayaan iyo sidoo bahalnimada leh ee deegaanka Tal al-Hawa ay u galeen ayay ku irtiri warbixinta ay soo saartay Hamas ayaa dunida oo dhan ugu baaqday inay tahay talaabo in laga qaado nidaamka sahaniyada Israa'iil laakiin si tan ayaa u muuqata in gabi ahaan bay xog ka soo naasacday madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa qirtay inuu ku fashilmay inuu nidaamka Israa'iil ee sahaniyada uu ku qanciyo in ay qaataan jid ka fiican kan dagaalka waxa uu sheegay in uu ka shalaayo arintaasi sida ay wararku sheegayaan madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay qirtay arintan oo u muuqata mid markaasi iska cad in ay dhibaato aad u xoogan ku noqotay ayuu wuxuu siyaasadayada gaar ahaan wuxuu siyaasadda Mareykanka isagoo hadlayay Joe Biden waxa uu sheegay in ay markay noqoto in Israa'iil ku qanciyo inay dadaalada dhinaca diblomaasiyadda ku bedesho dagaalka aadka u baahan bilowin aad u badan uu dadaal aad u xoogan u waday ayuu ku tilmaamay taas inay tahay mid laga xumaado hase yeeshee tan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ay ku socoto cadaadiska aadka u xoogan wayna soo noqon doona wararka saddexaad ay ku jiraan sida madaxweynaha dalkaasi loo cadaadinayo laakiinse waa maxay hadalkan uu qirtay macnaheedu wuxuu yiri aad iyo aad ayaan oga niyad jabay sida muuqata ayuu yiri arintaasi waxaana uu ku tilmaamay in gabi ahaanba uu filayay in ay arin guul ay timaado oo tan ka duwan isagoo ka hadlayay qaar ka mid ah xubno uu kula sheekaystay barta NATO ee cashada uu ku sameeyay ayuu sheegay in uu gabi ahaanba uu qaba kariyay wax inta ka badan laakiinse wararka qaar kood ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka aysan jirin sabab wax ku qaban karo maadaama baa la yiri ay jiraan xubno aad u kakan oo nidaamkiisa ka tirsan oo diidan gabi ahaanba si socoshada arrimaha nabadgelyada iyo in xasaradaha oo dhan yareeyo dadka qaar kood waxay sheegeen in dadka Israa'iil ay dhibaataysay ay gaarayaan 186 kun oo qof sida uu sheegay wargeyska The Lancet oo asagu ka hadla dhimashooyinka dunida ka dhaca waana wargeys dhinaca arrimaha caafimaadka waxa loo yaqaanaa medical journal dalka Britain ayaa laga leeyahay waxay ku ilaadiyeen in dhimashadaasi ay tahay sida dhabta ah sida loo maleynayo hada madaxweynaha dalka Mareykanka waxa la sheegay in wasiirkiisa arrimaha dibadda maxuugiisa arrimaha dibadda uusan si daacad ah gabi ahaanba uga shaqeynaynin wixii loo dirayay oo ahayd joojinta colaadda halkaasi ka jirta taasoo lagu tilmaamay in ay marba marka ka dambaysa ay tahay mid si darsanaysa waa sida la sheegay oo ay marba ka dambaysa ay si xumaanayso dhinaca kalena wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Barak ayaa markale ku celiyay digniin ku saabsan in ay Israa'iil ay wajihi doonto madaxdeeda oo dhan adduunka oo dhan laga ugaarsado oo la soo qabto Ehud Barak oo la hadiyay wargeyska Haaretz ayaa sheegay in uu gabi ahaanba ama Ehud Olmert baa la yiraahdaa in uu gabi ahaanba adduunka ay ka noqon doonaan kool eeriyadu sida muuqata adduunka dhan waa la eeriya doona waxaana u noqota arintani in ay gabi ahaanba inaga dhigi doonto dal dambiile ah dambiga ka dhacaya aagaasina ay yihiin kuwa sii soconaya wuxuuna si gaar ah u sheegay aagaga loo yaqaan Samaria iyagu ugu yeedhaan Judea Samaria oo ah daanta galbeed taasoo uu ku sheegay in boobka halkaasi ka soconaya xitaa ciidana uusan qaadan karin marka la eego ayuu qof walba uu og yahay jawaabta dunidu ay ka bixinayso boobka burburinta baabi'inta iyo waliba gubista iyo dilka dadka aan waxba galabsan xitaa kuwa dagaalka ku jiray inagoo qasala yaaban ayay tanay ugu darsantay ayuu markaasi
Ehud Olmert dowladda Mareykanka oo cadaadis aad u xoogan oo markii u horeysay haysto ayaa haddana waxa ay sheegtay in ay baryotabayso Israa'iil wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ee markaasi dambiilaha Yoav Gallant oo markaasi maxkamadda dambiyada dagaalka ICC ay doonayso ayaa la sheegay in uu dalbaday in la gargaaro si ay ku waramayso wakaaladaha wararka ee dalalka reer galbeedka goortii horse ayaa waxaa la sheegay in wakaalada wararka Anadolu Agency dalka Turkiga ay ka ogaatay wararka reer galbeedka ay tabinayaan warbaahintood in wasiirkaasi uu la hadlay lana kulmay madaxa arrimaha bariga dhexe u qaabilsan aqalka cad ee dalka Mareykanka The Middle East gaar ahaan ayuu u qaabilsan yahay maxalliga isku xidhaha siyaasadda aqalka cad ee bariga dhexe Brad Mikkelcook markii uu tagay ayaa la yiri deegaanadaasi gaar ahaan Israa'iil iyo dhulkeeda waxa uu la kulmay calaacal aad u weyn oo ka soo burqanaya Mr. Gallant ayaa waxa uu sheegay in hubka iyo rasaastu ay ka go'as sanadu waa nagu ciriiri isla markaana aad iyo aad ayay nooga yartahay wuxuuna sheegay inaysan ku filayn in bambooyinka 500 kaliya loo fasaxay waxay dalbadeen inay u baahan yihiin hubka aad u badan iyo sanad tani waxay imaanaysaa iyadoo Israa'iil ay dhawaan ay sheegtay inay iibsan doonto 25 diyaaradood oo nooca F-35 jets loo yaqaan dalka Mareykanka hor leh taasoo ay ku tilmaameen inay doonayso inay ku badiso waxa ay ugu yeedhay stockpile-keeda ama kaydkeeda dhinaca hubka haddaba madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa wali waxa ku sii socda cadaadiska ah inuu meesha ka tago tani waxay keenaysaa ayaa la leeyahay iyadoo uu ku soo quriyay hubkii Israa'iil dadka dagaaldoonka ayaa la aaminsan yahay inay diidan yihiin hoggaankiisa Barack Obama iyo Nancy Pelosi ayaa la sheegay inay si khaas ah u hanteen madaxweynaha labadan qof waa labada ugu dameeya uguna taageerada badan uguna jecel isaga sidoo kale labada qof ee ugu miisaanka badan dhammaan xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka oo dhan marka laga yimaado madaxweynaha maanta jagada haya Barack Obama waxa loo yaqaanaa inuu yahay qofka ugu miisaanka badan xataa Bill Clinton isaga ka sii miisaan weyn maanta marka laga hadlayo dhinaca taageerada lixaad kale ee uu ka haysto shacabka Mareykanka waxa la sheegay in labadan qof ay hanteen samarkaana ay sheegeen inay ka walacsan yihiin qaabka difaac iyo sida uu yahay caafimaad ahaan hadalkii ugu dambeeyay uu khaldo wuxuu ahaa markii uu u yeerayay gaashaanbuurta NATO shirkeedana uu dhexdhexaadinayay ayuu wuxuu damcay in uu u waco madaxweynaha dalkaasi Ukraine Mr. Zelensky markii uu wacay ee uu ugu yeedhayay mikrofoonka inuu qabsado ayuu wuxuu ku yiri waxaadna waxaan u yeedhayaa madaxweyne Putin taasina waxa ay noqotay khalad aad u weyn laakiin waxa uu eegay inuu markii uu ka dhaqaaqay mikrofoonka inuu ama xasuustay in uu khalad sameeyay kadibna intuu dib ugu soo noqday ayuu yiri waxa iga dhex guuxaya ayuu yiri mar walba ninka aan maagayo ee Putin maadaama hadeerta aan Putin ka hadlayay sidaadeed markaas ayuu saxay madaxweyne Zelenskyna uu yeeray si kastaba noqotay madaxweynaha dalka Ukraine ayaan waxba ka soo qaaday arintaasi walow ninkii aad hayseen magaciisa in lagu yeero marka hadana iyadoo oo mikrofoonada adduunka iyo warbaahinta caalamka oo dhan ay tahay mid live ah ay wajigab tahay haddana dabcan waxa la sheegay maadaama madaxweynaha asaga uu isaxay in loo arkay kaliya in uu ku khaldamay taasi oo waxyaalaha muujinaya waa yeelmadiis si kale marka loo dhigo waayo markaas oo kale wax la khaldi karo dadka qaarkood waxay ku tilmaamayaan inaysan ahayn waa waxyaalaha la iska ilaaliyo qofka magaciisa in la khaldo haddaba waxa la sheegayaa in qaar ka mid ah xubnahan ay aad iyo aad saacado u dambeeyay waxanteen inkastoo aan la ogeyn go'aanka rasmiga ah ee qaadan doona Nancy Pelosi iyo Barack Obama oo ah labada qof ee ugu dambeeyay ee ereyga ugu dambeeya dhaha marka ay noqoto xisbiga dimuqraadiga ee laga reebo madaxweyne Joe Biden waxa la sheegayaa in ay gabi ahaanba ay ku tilmaameen inuu walaac leeyahay qaabka uu u dhaqmayo madaxweynaha marka la eego dhinaca caafimaadka tani waxay imaanaysaa iyadoo madaxweynuhu sidoo kalena uu la kulmay gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee aqalka hoose ee aqalka Congress-ka dalka Mareykanka kadibna uu weydiiyay sidii loo xakameelaha inuu tala ka bixiyo dadka daraasiinta ku dhow haatan darsan dhaafay ee madaxweynaha caaridaya kuwaas oo ku baaqaya inuu jagada iska wareejiyo sida ugu dhaqsaha badanna uu ka haro markaasi tartanka madaxtinimada ee dalka waxaana qaarkood ay sheegeen in gabi ahaanba uusan sii wadi karin taasi waxa la sheegay markii uu yeeray Hakim Jafari in uu ugu sheegay inaysan sii socon karin arrimahan loolanka ee isaga xisbiga dhexdiisa iskula jiro inkastoo ay u muuqato marba ka dambaysan inay arrimuhu sii dirsanayaan haddana dadkii ugu dambeeyay ee madaxweynaha ka goosta waxaa ka mid ah gobol laga soo doorto gobolka Colorado ee Bernie Peterson taasoo ku dhawaaqday in madaxweynuhu uu gabi ahaanba uusan hana karin madaxtooyada sidaa daraadeedna ay tahay in ay gabi ahaanba ay jagada siyaasi laakiin ra'iisul wasaaraha waddanka Britain Keir Starmer ayaa u muuqday inuu difaacay madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu sheegay in kastoo isagu uusan doonayn inuu galo siyaasadda dalka Mareykanka laakiin wuxuu ku tilmaamay intii isagu ula lahaa kulanka khaaska ah ee labadooda la isku kaliyay warbaahintuna xataa goobta ay ka maqneen inuu u ekaanin gabi ahaanba taam ah oo dhammaystiran maskaxdiisuna ay joogto wuxuu yiri marka ugu dambaysa aniga waxba igama khuseeyaan buuri arrintan oo waa arrin taala ayuu yiri shacabka iyo dadyowga Mareykanka
wuxuu yiri u dhashay oo wuxuu yiri muwaadiniinta Mareykanka waa arrin khusaysa oo arrimaha gudaha Mareykanka ayaa go'aansanaya waxa yeelaya laakiin waxaan ka sayaa buu yiri Winston Churchill oo ahaa ayuu yiri gabi ahaanba ninkii isagana sidoo kale isagu 80 ku jira markii uu arrimo dhinaca caafimaadka ah uu gabi ahaanba uu wajahay ee lagu cadaadiyay sidaas wuxuu weydiiyay wariyuhu maadaama Mr. Churchill inta la cadaadiyay uu isaguna jagada ka digay inay tahay inuu jagada ka digo wuxuu yiri gabi ahaanba tani waa mid u taala waa iska cadaay wadana America iyo u taala Mareykanka iyo dadkiisa ayaa ah kuwa go'aansanaya madaxweynahooda ayuu yiri isagoo markaa la hadlayay wariyaha leeyahay Chuck Tapper ee TV-ga CNN oo siinayay wareysi khaas ah waxa loo yaqaan exclusive interview tani waxay ka dhigan in warbaahinta bidixda oo CNN ku hogaaminayo ay si aad u xoogan ay markaasi ay u riixayso in Mr. Joe Biden uu jagada iskaga tago hadaba isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri aniga markaan kula hadlayo waxaan kaliya sheegi karaa intii aan kulanay markii aan kulanay ilaa 45 daqiiqo ayaan kaliya wada joognay gabi ahaanbana waxaan ka wada hadlaynay macluumaad aad iyo aad u tira badan waxaana uu ahaa mid marba ka dameysa aanu meelo badan taabananay oo mid ka gudub sheekooyinka mid ay isku ay sii dhibayeen gaar ahaan wadiicda ayuu yiri halista iyo kuwa xasaasiga ee labada dal ka dhaxeeya maadaama labada dal ay isku qiim yihiin sida daraaddeed wuxuu yiri haba yaraatee wax soo maseegta ah oo dhinaca caafimaadka kama arag mana arag wax leeyahay xasha iyo waliba isku dhaxdaadasho dhinaca qalbiga ama maskaxda ah taasi waxay ka dhigan tahay ayuu yiri anigu in aan wixii aan ka arkay kaliya aan sheegi sidaas ayaa uu sheegay markaasi ra'iisul wasaaraha wadankaasi Britain Mr. Starmer gaan dunida dabashana qiimaha leh tarbeelka wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan farqama qadna dabashana qiimaha leh marba wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo idil baarlamaanka wadanka Finland ayaa arrin Soomaalida saameey doonta iyo Suuriyaanka si gaara u ansixiyay baarlamaanka wadanka Finland ayaa sheegay in dhammaan dadkii ka soo gudbay xadka wadanka Ruushka ee u soo gudbay dhinaca wadankooda ay ahayd arrimo siyaasadeed oo wadanka lagu kharbudayay sida daraaddeedna waxa ay sheegeen in haatan iyo wixii ka dambeeyay ay go'aansadeen in dadkii ka soo tallaabay xadka wadankooda la wadaago Russia dib loo celiyo Finland baarlamaankeedu waxay sheegeen in gabi ahaanba arrintani ay noqon doonto mid kaba dameysa kadib markay ku tilmaameen in dadkaasi ay yihiin kuwa goorsi horeysay soo gudbay boqolaal qof oo dad ayaa soo dhaafay xuduud waxaa la sheegay in ay dadkaasi si gaar ah arrintani u saameyn doonto Soomaalida iyo Suuriyaanka oo iyaga la aaminsan yahay in dadka ugu badan aagaasi kasoo gudbay ay tahay waxay baarlamaanku ku eedeeyeen wadanka Ruushka inuu arrinta ama marxaladda iyo qadiyada ku saabsan dadka soo galootiga ah uu siyaasadeeyay sida daraaddeedna waxay sheegeen inuu arrintan hub ahaan u isticmaalayo maadaama ay hub ahaan u isticmaalayo Russia isla markaana ay doonayso inay dalkeena khalkhal geliso waxay u egtahay tani inaynu sameeyno laakiin si aqalka Kremlinka ayaa gabi ahaanba dhaleeceeyay go'aamada noocaas oo kale wuxuu ku eedeeyay Helsinki gabi ahaanba inaysan Moscow raalli ka ahayn dadku in ay loo fududeeyo laakiin dadku ay dusay dadka dusaya ee dunida oo dhan ayay dawladda dalkaasi Russia ku tilmaantay inay tahay wax iska caadi laakiin Finland ayaa aaminsan in tan iyo intii ay ku biireen gaashaanbuurta NATO ay sidan ku dhacay waxaana sheegeen inay inahaas ahayd waayadii ugu dambeeyay sida weyn ay saameynta xooggan ugu yeelatay waxay ku tilmaameen arrimaha noocyadan iyo qorshayaashan oo kale in ay noqon karaan marka ka dameysa kuwo keeni karaya dhibaabe dhowra oo isugu jira kuwa mustaqbalka iyo kuwa gabi ahaanba labada dal cilaaqaadkooda awalba ula booca isugu markaasi tukubayay xaaladoodu ay xumaato si darsato isla markaana ay fool xumaan karto siday wararku sheegeen kumanaan kun oo reer Yaman ayaa isku soo baxay magaalada Sanca ee xarunta wadankaasi ayagoo ka jawaabaya dalabkii ka yimid Falastiin ee ahaa in dunidu ay samayso isku soo bax aad u weyn Sanca kumanaanka kun qof isku soo baxay ayaa sitay calanka Falastiin oo hareeyay waxayna dalbanayeen in la joojiyo dambiyada dagaal ee Israa'iil iyagoo ku tilmaamay in dambiyada dagaal ee Israa'iil ay geysanayso kuwa horaan qaadkeedii la joogay oo dhiigga ay ku haleelayso gabi ama ay u eegtahay mid aan dhamaad lahayn dadka ayaa dalbaday in wadamada caalamka islaami ay kaliya kaalmeeyaan walaaladooda qolow waxay ku kaalmeyn karto hay'adda Palestinian Red Crescent ayaa kamid ah kuwii ugu dambeeyay ee keena howlgallada Israa'iil ee ka wado deegaanka qaxoontiga Nusrat halkaas oo la aaminsan yahay in Israa'iil ay ka geysatay dambiyo aad iyo aad u waaweyn dambiyada ay geysanayso Israa'iil iyo nidaamkeeda ayay ku tilmaamantay hay'addu inay mid si darsan tahay dhinaca kalena hay'adda Amnesty International ayaa ku baaqday mar kale in xabad joojin laga sameeyo Gaza iyo sidoo kale dhinacyada oo dhan ay qaadaan tallaabooyin lagu yareynayo dadka la saxariiriyay ee reer Falastiin Amnesty International oo fadhigeedu yahay magaalada London ee dalka Britain ayaa ku tilmaantay in dambiyada dagaal ee aagagaasi ka dhacay ay yihiin kuwa caadiyay waxaana Amnesty International ay dhalishay sida loo helayo meydad sida koronkorada isku saaran oo Israa'iil si aad u xooggan
ay u dhibaataysay dhinaca kalena hay'adaha qaramada midoobay ee ka mid ah hay'adda UNRWA ee ah tan Falastiin oo qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay inay marmar ka dambayso ay sii badanaan soo dambiyada ee Israa'iil ay sii qaadayso iyagoo dhinaca kalena sheegay in cadaadisyada dadka reer Falastiin la saaraya ay yihiin kuwa si kasma ay isugu xiran iyadoo tan ay u muuqato haddana waxaa la sheegay in maxkamadda cadaaladda adduunka ee International Court of Justice ay 19 bishan ay go'aansatay inay soo saarto go'aamo masiiri ah kuwaasoo la sheegay inay noqon doonaan kuwo taariikhi ah go'aamada laga sugi doono ayaa lagu tilmaamay inay noqon doonaan kuwo talooyin iyo waliba aragtida ay ka qabto dhibaatooyinka dhinaca ay ugu yeedhay markaas inay yihiin kuwo shuruuca ee Israa'iil ay ka geysanayso dhulka la haysto iyo gaar ahaan dhulka ay ku jirto bariga magaalada Quds ee barakaysan ayaa la yiri waxayna sheegeen in 3 galabnimo waqtiga dalkaasi Netherlands isha lagu wada hayo maxkamadda oo barta ay ku leedahay Twitterka ku daabacday warkan ayaa sheegtay in ay tani tahay gabi ahaanba go'aamo ee dawladaha adduunka oo dhan ay ka dhursugayaan taasoo noqon doonta kuwo wax ku ool Israa'iil ayaa la sheegay in maalmaheedii adkaa ee dhinaca caalamka oo dhan ay gashay maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa go'aankan wuxuu noqon doonaa mid masiiri ah iyadoo la doonayo in dhulka la kala xukumo sidoo kale ay go'aamo ka soo saarto goortii horeysay ee maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC waxay dhankeeda sheegtay inay xoojin doonto ugaarsiga kooxaha dambiilayaasha waxaa dhinaca kale ay wararku sheegayaan inay tani tahay talaabooyin Israa'iil ribaaxooyin ku noqon doona wararka qaarkood ayaa sheegaya in dawladda Mareykanku lagu soo waramayo in dawladda dalka Britain ay ku cadaadinayso inay gabi ahaanba maxkamadda cadaaladda ee ICC inay cadaadis ku saaraan in la joojiyo ama laga hawlgalo waxay ugu yeedheen yareynta in la soo qabto Netanyahu waxay wararku sheegayeen dawladda Mareykanku ay Ingiriiska cadaadis khaas ah ugu saarayso in maxkamadaynta Netanyahu iyo saraakiisha kale Israa'iil soo badanaya ay u egtay mid lagu cadaadinayo tan ayaa u eg markaasi dawladda Mareykanku ay diidan tahay in iyadoo ninkani uu maxkamadaysan yahay uu imaanayo 14 bishan Congress-ka Mareykanka hadal ka jeedi doono taasi waa ceeb aad u weyn oo mar kale dawladda Mareykanka qabsan doonta waxayna doonayaan in Ingiriiska iyo wadamo kale ay kula daartaan arrinta ay timaado si kastoo noqotay wargeyska The Guardian ee dalka Britain ayaa sheegay in Geoffrey Robertson oo kamid ah dadka sida weyn dawladda dalka Ingiriiska ugu cadaadinaya inaysan ka noqon ama wax cadaadis aysan saarin maxkamadaas iyo waliba xubnaha sarsare ayaa sheegay inay tani fool xumo ku noqon doonto ra'iisul wasaare Starmer haddii uu u dabco go'aamada noocaas oo kale Mareykanku waxay u eegtahay in gabi ahaanba uu dawladda Ingiriiska doonayo in ay ka daba qaadato ICC wuxuuna sheegay in Mareykanku xubin uusan ka ahayn maxkamadda ICC maadaama uusan xubin ka ahayn sida daraadeed haddana uu cadaadis noocaas oo kale wado dawladda Ingiriiska ayaa sheegay in dhibaatooyin aad u xooggan ay haystaan oo beerka jecel kolka ay timaada waxayna ka silaaday ayaa leeyahay siyaasad ahaan goorta ay ku dumanto laakiin markii uu qabsaday jagada maalin kadib ra'iisul wasaaraha wadanka ee cusub wuxuu ku baaqay xabajoojin degdeg ah oo rasmi ah iyadoo Israa'iil la sheegay in uu ugu baaqay inay xabada joojiso dadka qaarkood ayaa tuhunsanay in dalalka reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo UK ay ku kala qaybsan yihiin siyaasiyiintooda talada haysa sida xabada loo joojinayo marar badanna ay yihiin afgobaadsi ee warku uusan ahayn mid dhab leh haddaba Microsoft horey horta waxaad u ogeydeen dadka reer Falastiin dagaalka lagula jiro inaga waxaa noo muuqda Israa'iil iyo Xamaas uma isleeyeen laakiinse waa dagaal dunida oo dhan gaar ahaan reer galbeedku ay u dhan yihiin taas waxaan ku leeyahay dadka shacabka reer galbeedka marka la eego majority 77% way kasoo horjeedaan in dadka reer Falastiin loo galo laakiin dadka awoodda haysta waxa ugu daran ee dhibaatada ugu daran ku haya dadka reer Falastiin ma taqaana idinku waxaad moodaysaa hubkan rasaastan loo dirayo maaha waa warbaahinta iyo teknolojiyada shirkadda Facebook waxaad ogeydeen in ay goortii horeysay ku tumatay xuquuqda dadka oo dhan gaar ahaan wariyeyaasha oo ay si gaar ah u dhibaabaysay aadna ay u dhibaataysay una dhaawacday waxayna gabi ahaanba olole ku qaaday dadka reer Falastiin muuqaaladooda keena kuwa ka hadlaya iyo kuwa ay ka dareento in ay gabi ahaanba arrimaha sheekooyinka dadka la wadaagayaan si gaar ahaan markay arkaan muuqaal luqaddu doona ha ahaado ama carabi ha ahaado ama af Soomaali ha ahaado ama Urdu ha ahaado ama af Malay ha ahaado wuxuu doona ha ahaado haatan waxaa la ogaaday in shirkadda Microsoft ay dadka reer Falastiin oo dhan ee isticmaala barta Skype ee wacaya dhulka qasa doonayana dadkoodii iyo dalkoodii inay la hadlaan ayagana ay dhammaan ka wada xidhay Skype taas waxaa lagu tilmaamay arrin masiibo ugu weyneed iyadoo oo dadka qaarkood ay ciwaano ah soo qoreen waxaa la burburiyay nolosheedii dhinaca digitalka Salah Al-Isaadi oo ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa BBC-da waxa uu sheegay in uu haystay barta Hotmail-ka uu isticmaalayay 15 sanado ugu dambeeyay wuxuuna sheegay in emailkiisii Hotmail-ka gabi ahaanba baan laga saaray oo laga mamnuucay iyadoo aan xitaa wax ababa loo sheegin wuxuu yiri waxa kaliya oo la soo qoray waxaad ku xadgudubtay heshiiska kadib markaan iri buu yiri waa heshiiskii kan ku xadgudbay email waxa loogu talagalay qofku inuu email ka dirsado laakiin si isdabagalka iyo dunida isdabagurka waxay ku tusinaysaa in ayna anagu waxba lahayn
dhammaan tiknoolajiyada aan isticmaalano waxba kuma lihin horta ogaada caalamku islaami waxa kuma laha hotmail ma lihin oo yahoo ma lihin oo ma lihin facebook ma lihin oo twitter ma lihin oo tiktok ma lihin dhammaan waxaa tahay nin qol degan oo youtube ma lihid dhammaan waxaa tahay nin qol degan maalinta la doonayo laga saarayo maalinta la doonayo laga xiran macnaha ereygaas kaliya kuugu fasiri karaa markaad isticmaal user baa tahay waqti kasta ayaa laga xiran karaa tiknoolajiyadan haddaba dagaalka noocan oo kale wuxuu muujinayaa ayaa la yidhi sida markaasi gudnimada leh ee bahalnimada leh ee dadka reer Falastiin loola dhaqmay BBC-da ayaa sidoo kale waxay soo tabinaysaa inay tobanaan qof sidan oo kale lagu sameeyay ama loo galay ogoobay isla BBC-dan soo gudbinaysa warkan ee hadeerto shirkadda Microsoft oo iyadu iska leh Skype iyo dhinaca kale iska leh barta loo yaqaanay Hotmail waxay kala mid tahay iyaduna inay joojisay dhammaan wararkii iyo xogihii dadka reer Falastiin ee cadaaladda ahaa ee laga sugayay tani waa tuuto sidoo kalena waa laba dibleen tani waxa weeye dhacdooyinka caalamka ee u baahan in taariikhda la geliyo sidoo kalena aynu tahay in aynu ku taano oo ogaano in caalamka islaami aysan lahayn warbaahin ayaga khaas u ah haddaad warbaahin xitaa haysatid oo aad xogaha keeni kartid meeshii aad ku shubi lahayd aad ku gudbi lahayd ayaa cilad aad weyn ku kasaaray